السلام عليكم. راسموس بالودان afartan jir ka soo jeeda Denmark markii uu yaraa maalin isagoo saaran baaskiil ayaa wuxuu soo wajahay baabuurkii ayuu ku dhuftay madaxa ayuu dhulka la galay durbadiiba waxaa loo qaaday isbitaal waxaana lagu sameeyay qaliin dhanka maskaxda ah qaliinkan lagu sameeyay ninkan wuxuu ka dhigay qof mutaqallif ah qof qalifan wuxuu bilaabay inuu noqdo qof necab dadka muhaajiriinta ah dadka soo galootiga ah inkastoo isagaba asal ahaan uu yahay muhaajir aabihii isaga dhalay wuxuu ka yimid dalka Suweyd xitaa mar ninkan wuxuu aaday dalka Suweyd wuxuuna ka dalbaday inay siiyaan dhalashada dalkaasi maadaama uu aabihiisu yahay Suweydi laakiin way u diideen iyagoo sabab uga dhigayo inuu qofkan yahay qof mutaqallif ah qof qalifan qof aan sida caadiga ahayn maalin maalmaha kamida wuxuu wareysi la sameeyay kanaal ka tirsan Discord isagoo ka hadlayo fikradihiisa galmada ka dhanka ah gabdhaha aan qaangaarin yacni wuxuu ka hadlayay galmada lagu sameeynaa gabdhaha aan qaangaarin arinkuna wuxuu ahaa maqal iyo muuqaal maalin kale ayaa wuxuu soo istaagay isagoo qaaban oo dhalinyarada ka dalbayo inay la wadaagaan tajrubaadka yacni tijaabooyinka ay sameeyeen tijaabooyinka galmada ah ee dhalinyaradaas ay sameeyeen inay la wadaagaan iyo qaababka ay gabdhaha ula soo galmoodeen waxaa jirta su'aal isweydiin mudan nafsadeeda aan weydiinayo sidoo kale waxaan weydiinayaa aqyaarta ku xiran kanaalka garwaaqsi su'aashu waxay tahay shakhsi ay xaaladiisu sidaan tahay shakhsi sidaan u qalifsan sidaan u akhlaaq daran xaq jirna ah intuu mudan yahay inuu ku noolaado ani waxaan dhihi karaa laba meel midkood midda koobaad waa in xabsiga loo tixaabo oo uu cimrigiisa xabsiga ku dhameysto midda labaad in la geeyo isbitaal lagu hayo dadka waalan laguna soo toosiyo dadka isaga la mid ah oo qalifsan laakiin galbeedka adduunka Yurub iyo Ameerika qofkan iyo wixii isaga la mid ah waxay ka noqonayaan qaado horwadayaal dad hogaamiyayaal ah dad siyaasiyiin ah mana mudan inay noqdaan siyaasi iyo wax la mid ah waxay mudan yihiin waa in xabsiga loo tixaabo mise la soo hagaajiyo idibna loo soo yeelo راسموس بالودان wuxuu asaasay xisbi ugu magac daray al-khatt al-mutashaddid xisbiga adag oo ku adag dadka soo galootiga ah dadka muslimiinta iyo wixii la mid ah inta waxa iga daran oo aan aniga ka carooday ramadaankii la soo dhaafay dhexdiisa maalinimo jumco ah ayaa ninkan wuxuu dhex istaagay kulan uu isugu yeeray taageerayaashiisa oo ku kulmiyay meel kamida meelaha ugu caansan dalkaasi wuxuuna jeediyay kelmad waxyaabaha uu yiri waxa kamid ahaa aniga ma aaminsani ma i'tiqaadsani in qofka laga rabo inuu sameeyo wax waliba xurmadaysan oo sharfan marka arinka uu ku tacalluqo yacni uu qusay islaamka kadib wuxuu bilaabay inuu gubo kitaabka quraanka kariimka ah si calani ah oo aan qarsoodi ahayn oo ka muuqata kaamirada horteeda ayna ilaalinayaan ciidan waxa loo ilaalinayaa inuu kitaabka gubo subxaanallah arintan waxay ka careysiisay muslimiinta kaliya kama caroonay shacabka xitaa dawladaha muslimiinta oo wax badan ka aamusay way ka caroodeen xadgudubkan wayna ka dhiidiyeen dawladaha arintan ka carooday kana dhiidiyay waxa kamid ah Saudi oo cadeysay inay diidan tahay daadaansigan weyn ee lagu wado dadka muslimiinta ah dawladaha kale ka carooday waxa kamid ah dawladda Masar oo tiri arintan waa cunsurinimo foolxun oo dhaawacaysa dareenka dadka muslimiinta ah iyo dawlado kale oo fara badan oo muslimiin ah ayaa ka dhiidiyay arintan foosha xun darteed muslimiinta ku sugnaa dalkaasi waxay bilaabeen inay u kacaan diidmo ay diidan yihiin xadgudubkan lagu sameeyay kitaabka Alle ee Quraanka Kariimka ah waxa halkaas ka bilowday mudaaharaad aad u ballaaran oo dhibaatadiisu daran tahay sida inay gubaan hantida dadweynaha meeshaas ku nool waa sida muuqaalka uga jeedno waxa xusid mudan marka ma ahan markii ugu horeysay ee shakhsigan uu ku jaaziyay dareenka iyo mashaacirta dadka muslimiinta ah marka ma ahan markii ugu horeysay ee uu shakhsigan ku ciyaaray muslimiinta dadnimadooda sanadkii 2019 shakhsigan Rasmus isagoo ka soo hadlay kanaalkiisa YouTube wuxuu sameeyay musxafka quraanka ayaa wuxuu saaray dush hilib doonfaar dhacdooyinka foosha xun way iska tira badan yihiin tubaneeye xadgudub ayay gaaladu ku sameeyaan islaamka iyo muslimiinta midalan dhacdadii majalada Faransiiska oo jazaaska ahayd oo ay gaaladu ku soo bandhigeen subar karikatiriya sabir kartoon ah oo lagu xumeynay rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sidoo kale siyaasigan Holandiga oo dalka Holanka soo jeeda bartiisa baraha bulshada ayaa wuxuu ku soo faafiyay qoraal ah laali ramadaan laali islaam laali ramadaan ma jiro yacni soom ma jiro soonkuba waa wax aan jirin laali islaam sidoo kale islaamku wax jira ma ahan intaas iyo inka badanba gaaladu waxay ku jaaziyaan diinteena sharafta iyo xurmada leh oo aan nafta u horeeno waxa jirta su'aal laga yaabay
inaad adigu hadeertan isweydiinaysid su'aashu waxay tahay shakhsigan iyo kuwa isaga la mid ahba maxay islaamku u necab yihiin maxaa ku kalifay inay ku dhaqaaqaan dhaqamadan foosha xun oo xag jirka ah waa su'aal muhiim ah mudanna inaan isweydiino insha Allah waxaan ka siin doonaa jawaab waafi ah oo aad ku qanci kartid waxa ku kalifay inay dhaqamadan foosha xun ku dhaqaaqaan waa laba arrin midkood mid koobaad dadkani waxay u baahan yihiin shacbiyad yacni waxay u baahan yihiin taageere inay noqdaan dad bulsho leh waayo inta badan dadka afcaashani ku dhaqaaqa dadka afcaashani foosha xun ku dhaqaaqa waa siyaasiyiin sida Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska iyo shakhsiganba oo aan hadeer ka hadlayno marka ay ficiladan foosha xun ku dhaqaaqaan waxa u soo bixi doona dad iyaga ku raacsan fikradahooda anshax ka baxsan midalan shakhsigan Rasmus wuxuu ka qayb galay doorashada 2019 ee Denmark wuxuuna helay 1.8% yacni wuxuu heli kari waayay shakhsigan oo uu waayay hal kursi oo kamida fadhiga baarlamaanka laakiin xadgudubkiisa iyo xagjirnimadiisa ayaa sare kicisay shacbiyadiisa heer aad adigu hadeertan magaciisa iyo axwaashiisa ba maqlaysid inkastoo aad lacnadaysid oo aad habaaraysid maadaama aad tahay qof muslim ah oo diintiisa lagu xadgudbay kitaabkiisana la gubay midda labaad oo reer galbeedka ku kaliftay inay xagjir ku noqdaan dadka muslimiinta ah kuna xadgudbaan diintooda islaamka waxaan dhihi karaa reer galbeedku waxay og yihiin in diinta islaamka ay tahay diin adag oo aad u adag ayna ka baqdin qabaan islaamka reer galbeedka Yurub iyo Ameerika taariikhda islaamka si wacan oo dhaadan ayay u yaqaanin una og yihiin inaga haddaanu nahay dad muslimiin ah waxaanaysanaa wax ayna reer galbeedku haysan waxaanaysanaa wax kabeen wax ay reer galbeedku haystaan waana ixtiraamka iyo xushmada weyn oo aan u hayna diinteena islaamka waana arin ay iyaga afkooda noogu qireen reer galbeedku waxay noo qireen inaan inaga diinteena xushmadayn oo aan sharafno If I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them. akhyaari waxaa jirta arin u baahan feejignaan iyo faham balaaran oo ah ku hadalka foosha xun oo xagjirnimada ah iyo ku xadgudbida ummad sumcadeeda iyo sharafteeda laguma ictibaari karo xuriyatu tacbiir waana sida ay ku soo dulgabanayaan gaaladan caqliga xun leh inay diinteena caayaan kadibna ay dhahaan waa xuriyatu tacbiir inaga diinteena islaamka nooma ogola inaan noqono dad cunsuriyiin ah dad xagjir ah iyo wixii la mid ahba inaan noqono nooma ogola mudanayaal iyo marbooyin baahda ku xiran kanaalka garwaaqsi ina keena aan xoogaar ulaabane taariikhda nabi maxamed la aflagaaday misal lagu xadgudbo ma ahan mid hadeertan soo bilaabatay waa wax soo jireen ah laga soo bilaabo casr nubuwa casrigii nabinimada casrigii nabi maxamed la soo saaray oo ummada loo soo diray ilaa iyo hadeertan aan joogno waa wax socda xadgudubkaasi marnaba ma istaagin markii nabi maxamed la soo diray waxa soo food saaray dhibaatooyin fara badan sida in la aflagaadeeyo iyo in la tuhun yaani wax uu san ahayn in laga sheego sida in lagu tuhmayay inuu yahay saaxir beenaale wal ciyaadu billah waxaan isweydiinaynaa sideen ula dhaqmaynaa maraaxisha noocan ah markayna soo wajahaan ma qaylinaynaa ma caytamaynaa ma aflagaadan samaynaynaa maya intuba ma samaynayno intaas haddaan samayno oo aan caytanno dadkaas gaalada ah hadafkooda way bagaareen maraaxishan markayna soo wajahdo waxyaabahaan samaynayno way farabadan yihiin laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa laba nuqdo oo aan mawduuca ku soo gabagabaynayno midda koowaad inaan diinteena aad ugu sii dhabaano inaan tasbiixda badino inagoo ku dhaqmayna aayadu ilaahay leeyahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين مد لباد inaan goyno ka ganacsiga waxyaabaha ay soo saaraan dawladaha ay ka tirsan yihiin shakhsiyaadkan dhaqanka xun zamankan aan joogno dagaal la isku qaado waxa ugu daran al-xuruub al-iqtisaadiyya dagaalka dhaqaalaha arinta dagaalka dhinaca dhaqaalaha ah gaaladu aad ay u dhibaateynaysaa waxayna ku qasban yihiin inay adiga ku ixtiraamaan shakhsi ahaan diintaadana ay ixtiraamaan oo aynan diintaada u gafin waayo maxaa lagu ixtiraamayaa adiga waxaad gacmaha ku haysaa masaalixdooda iyo danahooda gaarka oo ganacsiga ah مثلا maalmihii la gooyay muntijaadka Faransiiska waad aragteen qasaarada foosha xun ay la kulmeen waxay gaareen heer madaxweynaha Faransiiska oo muslimiinta ka bariyo kana codsado in aynan isku darin iskuna milin xuriyatu tacbiir iyo ganacsi waa anigoo Umar Maxamed halkanina waa kanaalka garwaaqsi haddii aad isleedahay kanaalkan garwaaqsi wax u badka faa'iidi ku soo biir kanaalka subscribe saar siina faafi kanaalka wixii tala iyo tusaale ahna commentiga noogu reeb wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh